السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kastoo naga daawanaysaan iyo si kastoo noola socotaanba halkani waa Murti Media kuna soo dhawaada barnaamijkeeni suugaan iyo sooyaal barnaamijka suugaan iyo sooyaal oo ah mid aan ku casuuno dadka hal abuurka iyo waliba taariikh yahanada Soomaaliyeed barnaamijkan oo toddobaadkan marti ugu yahay abwaan Cabdiqadar Miyir Maxamed oo aan ku soo qaadan doono qaybo kamid ah suugaantiisa iyo waliba hibadiisa hal abuurnimo أبوان كسر دو برامج كا سوغان يسويال. وان دوا شلكو أدي أدبض ما صنتهاي لما نون إني كم هذا علني أدي لما بهذا مرتميريا وإسقط دوبان سيدا شرفت اللي يقع سنتين برنامج. واي أبوان ولنت هنا برامج كنا جودة قلين إن سؤال بدن بتشير دونا إن شاء الله حرتشين يا bulsho badan oo wixii saqabtay suugaantaada inay maanta halkan si toos ah inooga daawan doonaan bas inta ugu galin waxaan jeclaan lahaa waxa jira dad badan oo ku garanaya Cabdiqadar ahaan ku garanaya in badan oo magacaaga iyo muuqaaga toona aan aqoonin baa laga yaabaa inay ku daawadaan ama ku daawan doonaba marka bal inaad bulshada isbarto Cabdiqadar waa kuma taariikh nololeedkaaga oo kooban inaad si kooban bulshada isu barto aad baad ma santaa su'aal wanaagsan aniga magacayga saddexan waa Cabdiqadar Miyir Maxamed waxaan kamid ahay dhalinyarta hal abuurka deegaanka Soomaalida aniga waxbarashadeedii dugsigii hoose ilaa dhexe waxaan ku qaatay magaalada Qabri Dahar halkaas oo xarunta macnaha gobolkaas ayaan gaar ahaan ka soo jeedaa kuna dhashay dugsiga sare waxaan ku qaatay magaalada Jigjiga iyo qayb kamid ah Guday waxbarashadeeda waxaan ku soo qaatay wadanka dibadiisa gaar ahaan dalka Malaysia marka intaas ayaan ku soo koobay waayahay awaan xarajeynaya qabulsho badan inay ka qabeeshay barashadaada in badan oo haray ku aqoonna ay si fiican ku aqoonsan doonaan hadda kadib baradaynu u guda gal suugaantaada runtii suugaantaada halka kuma soo wada koobi karayno balse intii waqtiga iyo maartay ay inoo saamaxaan qalban nasiibku ayaynu bulshada la wadaagi doonaa maanta haddaan soo qabto gabayga aan jeclaan lahaa inaad nagu furto barnaamijkeena ee ugu horeeya waxaa jira gabay la yiraahdo Sinji Dhalad gabayga Sinji Dhalad qisada uu ku yimid iyo waxa uu ka hadlayo xilligii aad curisay bal si horraac bulshada inaan isagana ula wadaagno aad baad mahadsantahay gabaygan shilkow qisada ku yimaaday horta 2015 meelahaas ahayd laakiin xilligan sameeyay 2017 dabayaaqadeedii baan sameeyay marka xilligaas oo wadanka Malaysia ku sugnaa ayaa waxaa jirtay arday badan oo Soomaaliyeed baan ahayn oo shanta Soomaaliyeed ka soo jeedo baasaboorro kala duwan leh dadkii marka xilligan nala joogay ajnabiga ah kala duwan ayaan dhihi jiray waa maxay Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Somaliland iyo Soomaaliya maxay inay dhahay adigu su'aalo noocaas marka gabaygan 2 sano kadib aan si su'aashiisa ka jawaabaya marka dhulka Soomaaliyeed iyo khayraadkiisa intaan ku faahfaahay xagga dambana aan su'aashi kaga jawaaban leeyahay Soomaalidu waa dadkaas waxaasayna isu tahay dhulkaasayna degtaa marka intaas uu deernay sadiis bartooyay markana gabayga dhamaystiran iyo dawadayaasha ayaan kula hadlaynaa waayahay okay gabayga Sinji Dhalad sida tan ay ku bilaabanayaan saada gabay alla ii sahlo waan susumiyaay mana aan sagsaagay murtida waan u sahanshaay oo waxaan sugaa un markii uu sidkeed galo maanta samaatay salkii aan u dhiga seeska oo maansa aan saxar tiro galaysa sooyaalka Suuriya balan idinka dhiga hadiyadsiismeeda sadriga dhagaha ee furoomaanka igu soo sagal midab leh dhool sare mariye heega sare joogta sama rooban caad iyo sibaaq sayma lagu daahay unkad iyo sawaxan ay dhaguhu saani ugu joogsan saxan saxa udgoon iyo ofiya caraf ku saaqaysa oo sifeen xiskiya maanka oo saxalka reebaysa sadriguna u bugo oo niyadu saaxin noqonaysa wad jeclaysan saanqaafka iyo suuradiya muuq intaasoo sifeen soo xusiyo kuman kaloon seegay meesha ugu sarreysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay Soomaalidu degtiya saaxada bariye oo meel la simaad garan adduun laguna saaweeyay dhul samaada oo simeeyeen saaca iyo doog oo gugi intuu dhibac sameediri rasaameelay sulaxyeenta daadka dhulkiisa saxarka yaal xaali baliyadana saaska jabshan oo biyaha sayri oo intuu sidii lagu yaqaan saara laxankiisa raha wada subcina oo jamcina sawdka iyo luuq intaasoo sifeen soo xusiyo kuman kaloon seegay meesha ugu sarreysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay Soomaalidu degtiya saaxada bariye
ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyey xarshin siriqa hawd iyo xidhsiga sayra wada oodan xagar jiif sagsaag iyo sarmaan sare baxdoo teedsa sogsog iyo cadaad iyo mareer caasha isa saaray suriin laga holuushiya kob aan suri lahayn toona caleentiya sitaa cunasintiiyo dhaafi suxulkaaga surraxaadka daymada dhul ay seexa o dhan laabto intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bariye ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeye ban sibsiba afmeer iyo daleed sibiqoo haw ah seeriya bannaan iyo dhul aan saxar lahayn geeda silsilada badweyn iyo dekada xeebadda calsaaran caroseel qurxoon iyo hundiye xeebadda calsaaran dhulan boodh sabeeye lahayn siiga kor u duusha intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bariye ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyo salax dibira doox iyo togiyo waadi soconaya suubaan iyo hud iyo laaga iyo buro dhinac saaran caroseel qurxoon iyo hundiya ciidsan iyo beero dhulan boor sabeeye lahayn siiga kor u duusha intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bariye ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyo xagaa sulufle jiilaal dubkiyo solo maqaarkaaga suudi iyo cadceed iyo kuleyl aad la saran seerto meelaan silc lahayn iyo waxay sakatidaa ruuxdu intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bari ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyo subag iyo hadday tahay hilbiya suusac iyo caano walow ayna siiyaan si guud meesiyadu saadka geelu lama sinoo dunyagu ugu sarreeyaay markay sidigta laalisashiya seeman iyo xaadis marka lagu salaaxay maqaar xananka loo saaro soobigiiyo markay gorofka iyo bidhaha saameesho sokeeyiya xigaal iyo dhallaan socoto toogaysan sin inay u rido oy dhargina waa xaqiiq sugan sufur iyo dhulan lagu arkin gaajo samaceeda intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bari ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyo sinsin iyo geley iyo haruur badar la suuq geeyo sur malaba sabiib iyo cambiya midhaha saytuunka meel aad sabuul iyo ka heli sarc la beertoo dhan shidaalkuna susumi oo nimcadu wada sabaynayso dhul aan lagu arkayn shay suniya waxa saluugtaaba intaasoo sifeen soo xusiya kuman kaloon seegay meesha ugu sarraysay adduun nolol ka suurowdo waa halkay soomaalidu degtiya saaxadaa bari ma meel lala simaad garan adduun laguna saaweeyo saraar iyo afdheer iyo garbiya saylac iyo faafa sasameyna dalaad iyo qabdahar soodimada dhuur sallaxaad hargeeliya wardheer gaarsiya saaxid siti iyo jabuuti iyo goday sibiya beercaan muqdishada siraadiya gediya soonka jararoon sabix iyo hargeysiya togdheer beledka sooyaal saax dheer garoowiya qardhiya seeska beledweyne sayidkii rugtiisiya taleexsabada buuhoodle mudug seeraheeda iyo nugaal hobyo surinkeeda baydhabo sifraarliyo jubboon laga socdaalaynin kismaayiya sanaag oon ciidan abid saluugaynin bilicdeeda sool boorabiya taniya buur saalax soomaalidu dhulkaas bay degtaa taniya sooyaal inkastoo siyaasado horiya sabanku uu qaybshay ama uu xad kala saarayoo soodin kala ooday sinji dhalasho guud baa jirtoon suulin abidkeeda sodoh iyo adeer iyo abtiya seedi iyo aabe waa gacal sokeeyo isdhalisaliya baarkooda marka gabayga sinjidhal intaas iyo su-aashiina halkaa u dambayso kaga jawaabaya iyada ahayd ee qisadu ku timaada waayahay run ahaantii gabayga sinjidhalad oo xaqiiqatan meelo badan taabanaya hadday noqoto geyga Soomaaliyeed nimcada uu Ilaahay ku manaystay khayraadka kala duwan ee ku duugan waxyaabo badan ee ka taabanaya oo runtii oran kara waxa muusan dhaafin waxaan jeclaan lahaa abwaan inaan halkaa weydiiyo su'aal kooban maxaa tiri surmalaba sabiib iyo cambiyaha midhaha saytuunka meel aad sabuul iyo ka heli sarc la beerto surmalaba sabiib iyo cambiyaha midhaha saytuun runtii gabaygan macnaha uu xambaarsan yahay si guud marka looga yimaado haddana waxaa laga dhadhansanayaa farshaxan aad u sarreeya oo xaqiiqatan qofku markuu dhageysanayo uu ku raaxaysanayo gabaygan haddii aan intaa kaga gudubno oon soo noqdo xagga su'aalaha aad iyo aad su'aalaha la soo taaginta waan ku arkaaya bal waxaa jira dadka hal abuurka waa afhayeenka bulshada weeyaan aad iyo aad badan laga fiiriyo oo hadlayaasha dadka aamusan ama iyagu codkooda aan meel fog gaarsiin karaynin hadday noqdaan qisooyinka qaybahooda kala duwan dareemada guud ee bulshadu ay la wadaagaan hadii goor waxa ka falceliyay dadka hal abuurka aad iyo aad marka bal si isku tiin xagga suugaanta jacaylka haddaynu bal suugaantii qaybihii wadaniga ahaa iyo kuwii qisooyinka kale ku saabsan halka kaga nimaadno suugaanta jacaylka si isku tiin shilka taa war kuguma seeganaan u malayn waad ogtahay waxa inta iga soreeyo
inuu jacayl yahay marka taa iyada isweydiin ma laha waaye aad iyo aad baan isugu fiicannahay gabaygan hadda inoogu xigana waayahay waxaa jira gabay liyaala isaguna dhiibsan de dhiibsan marka humaaga guud iyo heebaalka ama magaca marka loo fiirsado anigu kale waxaan iska oran lahaa ama si qiyaasiya inuu ka hadlay waxaa jira marka de aragto shay marka dhigaha uu shay ku soo dhaco waxaa jira sawir guud oo iska qaadato aad iyo aad marka ereyga dhiibsan markaan maqlay ama gabayga dhiibsan oo meesha ku arkay waxaan isla kulay inaan buu gabaygaas ka hadlaya bahada gabayga iyo qisadiisana dabcan gabadh weeye naga dabageyso waayo dhiibsan markaad maqasho halkaas dabcan humaaga ku soo hor istaagi waa humaag gabdheed marka gabayna waa gabay jacayl ah waana gabay cusub oo adigu maalmahan bishan waliba dabayaaqadeeda soo baxay bishan May marka bacda lagaga jariyaa marka kulay de gabayga ayaad qisada si fiican ooga dhansan doontaan macnaha inagii bulshada ina daawan doontaba marka qisadu waxay ahayd de isagoo iska socda yaa unbuu gabadh aad u qurux badan magaalada Jigjiga unbaa ka soo horbaxday adigoo iska socda mise isagoo iska socda yaa waxba aad ha u sii yaa ma garatay marka gabadhii markuu arkay gabadhii aqoon hore oo ma lahayn kadib intuu ma ka daba tagta ma la hadashay intuu lahaa bay ka libadhay gabadh aad heemaal iyo maxaan ku dhahay hubqaad leh aad u qurux badan oo de dhamaystumar ah ayay ahayd gabadhii sidii baa ku libadhay halkiina isagii de waa laga taftaafay marka suugaan u budday halkii macnaha uu gabadhii intuu tilmaamo macnaha quruxdeeda iyo gobonimadeeda qofka hal abuurkuna inta badan gabadh markaad aragto quruxdeeda haddaad gabadha u qalab qaado looma kala tago gobonimadu waxay ka odhanaysaa isu wada raaci nasabadeedii aabbaheedii awowgeed reerkooda ilaa maalinta dhaltay sida adigoo ogaa waa gabadhaad maalin badhaanteeda aragtay marka wixii oo dhan buu taabanayaa xagga dambena dee bulshada Soomaaliyeed buu leeyahay dee maxaan ku dhahay waa waxbaa laysu taraayay tol iyo qaraabo leeyahay gabadha dee maxaan ku dhahay leeli soo xijisay ninkii arkow waa qayladha marka gabayga intaas daaran yahay okay gabayga dhiibsan baan guda galaynaa xubno dhiibsan joog dheelitiran dhamana xadxaadsan sanqaroor intuu dheeri baxay dhumac yaroo toos indha kuulan oo dheehashada caashaq dhalinaya dibna dhuxul madow iyo kub aan dhubni lagu sheegin ilka dhay sideedii caddaan wada dhalaalaya dhunkashada afaad oo dhan allow yaan marnaba dhaafin luqun dhabi lamoodiya timaha dhaafay adhaxdeeda cabaadhiha ku dhigan ee kurkiya dheeraran qoorteeda dhexda madag sideedii yaraantahay ka dhumucdeed leh midab dheeman iyo dhexda madag sideedii yaraantahay ka dhumucdeed leh midab dheeman iyo luuliyo darab guyeed moodo dhadigood markaan fiiriyeen saa u wada dhowray inay tahay dhammaystay qarniga laysku raacdhuudiya marka aan dhililantaa arkeen dhehda quruxdeeda muxuu dholol jacayl iyo xanuun iigu dhici waayey dhadhaab iyo miyaanahay xadiid dhagax mallicaana warsawma ihi qof dhimir loo dareen saaqi kara dhuux waxaa dhalay garaad iyo ugaas aabba magac dheer dhanka kale waxaa nuujiso saartay dhabarkeeda gaarinimo dhabeel loo qiriya dhowrsan dumareed waana dhaladka Soomaali iyo dhuuxa Haashimi marka ay dhaqaaq maagtay ee socod u dhiil qaado ma dheerayso dhiiriye ma ah oo ma dheelido halkay dhigi tallaabada cudoon waa dhextaal sugan waa dhal culimadiin oo wanaag loo dhammaystiray dhudhunkiyo ilaa ciribta iyo dheega madaxeeda dhammaanteed xijaab qarye bay dhiibsan xidhataaye labiskii dhaclaha ay qabtiye dhaadashada diinta dhowristeeda eegmada indhuhu kama dhargaayaan dhaxdiyay u noqotaa allow oo ka dhala wiilan anoo duhur dharaareed socdo suuqa dhalan dhooli genya dherarka jooggeeda iyo dheeha lala yaabo dhufashada hubqaadkeeda iyo jaaha dhabankeeda dhaayaha markaan saaray een dhowra bilicdeeda sow dhab leema helin oo kalgacal dhuuxa ima saaq dharaar qura qofaad aragtayoo kugu dhex noolaaday oo eray adoon dhaafsanaya weedho dhaxal reeba magaalada intuu kaa dhex galay dhumay humaagiisu dhaymo male ka shii raacda ee dhabu jeclaataaye qalbigaaga ruux dhaawacoon joogin dhinacaaga riyadiya dhadhaba tooska iyo oohin dhalanteedka dhaawac iyo xasuusaha dhib kale dhabanahayskooda waa dhunkaal kuleyl badan qofkii soo dhamaa garan dhinacasti dalkeena iyo jigjiga faafan dhaladkeeda qurux aan dharaar daawadiya dhool ka ligan doollo muuq iyo humaag iga dhumaan dabasitaa dhiile sidii laygu dhacay maalintaan dhehday araggeeda waxaan ahay dhibana caashaqoo waan dhutinayaaye dhadhamiya ka go'ay oomatoo dheef ka saahiday ma dhankoola jiif oo hurdiya raaxo waan dhigay sidii geel dhukaan cudur qaboo dhugata weydaysin
ama baarqab qooq dholan dholo dhibida saydhaaya ninkaa dhuubtay ee aawadeed dhaarsan baan ahay dumar kale ma dhowro qalbiguu dhirfahayaaye oo dhankay iga jirtaabay hawada ii dhufanaysaa dhulkaa igu ballaadhee haddaan booqan kara dhiibsan ma dhibeen qofne aayar baan dhuuman laa subax markaasaan aroos loo dhanye dhigan lahaa gaaf dhab ahaan hadday joogi layd maanta dhinacayga dhakhtar iyo waxay noqon lahayd baan dhammaystiran dhimarkiiyo hankaygiiyo xiskay dhiiri gelin layd ramadkiiyo haleelada dhashaan dhiilu culan layn karuurkiiya waxaan dhami lahayn dhayada caanaha oo carruur iyo intaan u badallaan hoy dhisi lahayn ruux hadday la deristaa dhacdo liica dhabarkiisu dhimashiya intuu mudan lahaa dhaawac haliskeena waa inuu dhawaaqo dadkuna dhinac istaagaaye ha imoodin dhaandhaan haddaan qaylo dhaansado abaal baa u dhumci weyn wuxuu axad dhitaystaaye inta joogta DDS iyo gebi dhul Soomaali dhiig iyo intaan dhalasho iyo dhaqan wadaagnaaba waa yeel iyo dhalaan iyo carruur caydi iyo dhoor dhammaantood fariinteeda waan soo dhex dhigayaaye war qofkii dhaaya saaree arkaa dhiibsan gurigooda dhaqsaha igu sheego markaan helo dhambaalkiisa waa dhalashadii guusha iyo maalin igu dheere intaan dhiga xaflada aan dabeed farax la dhaylaaso gabayga dhiibsan halkaas ayuu ka egyahay waa tahay abwaan gabayga dhiibsan run ahaantii waa gabay cajaa'ibkiisa wata dee bukaan socod baan ahay ma tidhaahdi waad aragtaa ishayday ka muuqataa bukaan socdaanahay ishayday ka muuqataa laakiin abwaan su'aal yar ay soo daa waxaa gabaygaaga ka mid ahayd maxaa tiri kubka dhudhunkiya ilaa ciribta iyo dheega madaxeeda dhammaanteed xijaab qaryabay dhiibsan xidhataa halkaa tili waxaad faarfaari maxaad ka soo wadaa haddana waxaa tidhi timaheeda dheer ee kubkii maxaa tidhi adhaxda sii dhaaf dee gabadha hadday xijaab ilaa kubkiiyo lugaheeda qarinay xidhato adi timaheeda seedo aragtay marka bilowgii maxaan ku yidhi gabadha waa laysu raaciyaa wax walba adugu bidhaanteeda ma aragtay soo maa waxba looma kala reebo marka in uun qiyaasta dee dabcanna markaad aragtay gabadh quruxdaa leh dee timaheeduna waxay noqonaysaa un timi hindi uma yeelanaysa intaana adiga amaahiyada ka dhigan tahay adugu dabcan kolley anu kama xastin ilaahay baa siiyey marka anna kama xastin dee waayo habwan gabayga dhiibsan haddaan intaa kaga nimaadno oo aan soo laabano dhankii su'aalaha xagee isku tihiin bal xagga heesaha sugaanta ama waxa fanka la yidhaahdo qofku markuu hal abuur yahay saynu sheegnay waa qofka dareemo badan ka falceliya aad iyo aad waxaa laga yaabaa dareemadaas inaad sugaanta qaybaheeda kale kaga falceliso qaybihii fanka iyo heesaha inaad magaranaysa aad kaga falceliso marka ma jiraan adigu ama ma samaysaa dhanka heesaha ma jiraan heesa aad leedahay oo la qaaday ama ku haweyn tahay inaad xagga heesaha iyagana aad wax ka curiso ama aad waa su'aal fiican abaan shilkow ama wariye shilkow wariyaad igu noqotay heeso horta laba ay noqonayaan hees caadi oo qofka adigu iska heesi kartaa iyo mid fanaan qaado anigu daqiiqad walba iyo sikan walba horta waan heesaa oo saan baan ma garatay aniga ahna aniga maxaan ku dhahay madashayda facebooka halkaasaan ku heesaa hadhiya dharaarba maalin iyo habeenba heesaha fanaaniinta inta badan dhiibistooda iskuma badnin aad isuguma dhex jiro balse way jiraan adigu heeso ilaa 2 heesood adigu la tumay way jirtaa heeso Suldaan Seyraar mar hore qaaday hees uu Maxamed Saleymaan Barre jeesta uu qaaday labada heesood waa la qaaday heesa kale adigu fanaaniin heesood maxaa la yiraahdaa mid Najmal dhaa Suldaan uu qaaday gabadh dumaashida ah oo Najmal dhahayaan u sameeyay halkan aan ka salaamayaa iyada iyo siyigeeda dhammaan aad iyo aad kula salaamayna marka taas Najmal dhahayay heestan kalena nabdi dhayaa la dhahaa oo maxaan Saleymaan jeesta wadihii jacaylka iyo mawjadihi sitay weeyaan waaye marka adigu heesa kale oo fanaaniin hayaan way jiraan dhiibsanta lafteedu ka mid tahay laakiin aan wali soo bixin laakiin adigu si guud kulli iskuma badnin xagga dhiibida heesaha kuma badni laakiin adigu way jiraan adigu laakiin wax way jiraan waayahay abaan waxaynu imika la gudbaynaa sugaantaadeen hore u soconaynaa waqtiga waynu ugu gaaban awoodiina waa ka faa'iidaysanaynaa waxaan imikana soo qaban lahaa gabayga hooyo aad iyo aad hooyo run ahaantii waa shakhsiga dunida ugu qaalisan aad iyo aad oo aynu wada garanayno jiritaankeen la'aanteedna maartay jiritaanka dunida waxaa muusan ahaadeen
hooyadu waa shakhsiga buuxin kara boos kasta balse aan Aad iyo aad. booskeeda iyada Aad buuxin karin marka gabayga hooyo waxay ahayd waan ka xumahay inaan ugu soo horreysiinay ahayd oo mudnaanta koowaad isaga siinay sidii hooyadu mudnaanta koowaad u leedahay aad iyo aad, aad iyo aad. balse gabayga hooyo caaladaas doodba la qabtaa baa la yidhi Ah, gabayga hooyo iyo bulshada wayna hadda u kala dhex baxanayaan aad iyo aad waa saad sheegtay abaan ugu mudnaa in loogu horreysiiyo aad iyo aad laakiin taa waxaan ku ilaaweynaa waxaad ogaataaba gabaygii koowaad suugaanta ku bilaabay inuu yahay gabayga hooyo marka taasaa inaga ka fahmi kartaan marka gabayga hooyo tusaalayaal kooban hooyada iyo doorka ay ku leedahay bulshada iyo caalamka waan garanaynaa marka tusaalayaal kooban baan ka soo qaadanayaa marka insha allahu tacaala waan guda gelaynaa waayahay gabayga hooyana wuxuu ku bilaabanayaa sida tan hanti weeye gulluhu baxshiyo hibo ilaahay gabay haybadiisiyo anoon dilin hanaankiisa anigoon u hawshoon intaan ayar hagacsiiyo yaan ka haraa tiri murtiye dhagaha ii hoori harib sheekh dhawaaqoo ka diga naarta hooleceeda bulshadana horseedoo wacdiya khayra ku hanuunsha diintana hagaag ugu dhigiyo weyna hadalkiisa haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase agab hore hadha dhaxalgal iyo heesa iyo manso abwaanin haldooroo ka taga hadal loo miisaan leh hiddihiyo afkeennana nabara iyo higaadooda war haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase geesi hawl karmeedoo naftiyo huraya dhiiggiisa oo intuu hubkiisiyo la taago sanad wuxuu haysto cadaawaha halliiga oo warmaha huqda kaga gooya haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase dhakhaatiir adeeg hagar la-aan dhabugu hawshooda oo shacbiga hadday hiiltihiyo hole gaarab taagan habeen iyo dharaarbana shaqayn on hah oo dhanaynin haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase injineer cilmiga haadiyo heega saare gaadhay injineer cilmiga haadiyo heega saare gaadhay naqshad heer sarraysiyo farsamo haykal iyo muuqle nin farshaxan horan laastayo duni horyaalkeeda haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase halabley gabdheedoo quruxdu hibi tiiqlaynayso halabley gabdheedoo quruxdu hibi tiiqlaynayso oo laan hareeri ah sideed halala nuuraysa oo horweynin haystiyo midkaan halu u foofaynin mid kastaba inuu hoysta rabaa bilixaal dhaalayda haddaan hooyo koorisaa jirteen lama helen taase haddaan gabayga soo horiyon dulucdaa soo habto sida awr hayiina oo ku raaran hama laa cabbeeyey hoggaankiyo haddaan keenadiyo hiilayga u jiido waan hogaa tusaaleeyey uun doorka hooyadaaye abalkeed inaan hawl yaraan hadalku soo koobo waruu haa tufkeeniyo middaas waa habeen tagaye hawl lama qabteen hooyalii waana la hubaaye hawl lama qabteen hooyalii waana la hubaaye horumar iyo magaadheen khalqigu higsi nololeede adduunyada halaageed ilaah ku hareer maridhe aakhirana hirdoogliyo jannada habacsa oo seexo ambiyada hareertooda iyo nabiga hoygiisa
harsa oo macbuudkii ilaahoya ku casuuye آمين gabaygii آمين hooyooyinka ku آمين dhan بالله هنبرة aamiin إلهي هويوينكين iyo hooyooyinka muslimiintaba jannada jannooyinkiisa ku casuumo aamiin waxaan awal markaan aan u soo noqdo dhinaca bal xaflayaa inay su'aalaha inaan bulshada uga faa'iideyno wax badan waxaa jira ama xaqiiqo ah sida la sheego ama dadka hal abuurka ha noqoto ama dadkii suugaanta iyo dhaqanka u dhunteeyay ha noqdaan waxaa la dhahaa dhaqankii ama suugaantii ummadda Soomaaliyeed meesha way ka sii baxaysaa baryahan ama way daciifaysaaba iyadoo loo saleynayo fahamka bulshadu ay fahansan tahay oo aad u daciifay ama aad u liita iyo waxyaabo la hilmaamay marka bal adigu Cabdi Khadar ahaan maxaad leedahay arrintaas ma waxaad oran kartaa suugaantiisa way sare kacday oo miisaankii iyo magaranaysa iyo qiimihii suugaanta uu sare kacay mise hoos buu u dhacay oo gaabis baa ku yimid baa oran lahayd isla su'aasha labaad aan ka bixin maxaad jeclaan lahayd dhambaal inaad u dirto muddo Soomaaliyeed hadday suugaanyahankii noqoto iyo hadday noqoto qof kasta oo xil ka saaran yahay dhaqankoodii iyo suugaantoodii inay maartay horumariyaan shilka waa saa aad sheegtay aniga fikran haddaad weydiiso inuu naaqis iyo gaabis ku yimid suugaanta Soomaaliyeed inay ziira noqotay taagan tahay wuxuuna de intuu qiimo leeyahay bulshadiisa qiimo macnaha ee qiimeynayso ayuu jirayaa aad iyo aad gabayadaas iyo murtida aan hadda halkan ka sheegayo ee dareemaysa waqti iyo maskax in la geliyo cid maanta u dhag raaricin ama dhageysan ama wax iga weydiin ma laha somada garan wax yar oo maala yacni laakiin maanta haddaan ku hadlo dadku way bulshadu way ku dhag raaricinaysaa somada garan gabayadaas hadda qaar baa 2 sano jirsaday 100 jeer baan social media iyo meelo badan ku soo bandhigay cid hadda taqaana ma laha wali xitaa garanaysa markaas qofkii hal abuurka niyad jab baa ku imanaya qofkii suugaanyahanka iyo kaan ahayn lama kala garanayo maanta dadka suugaanyahanka runta markii laga hadlo qofka maxaan ku dhahay suugaanyahanka bulshada uu qarsoon yahay lama yaqaano qofka maanta la garanayo waa qof maxaan ku dhahay adigu ma garanayo waxaan ku sifeeyo adba wad la socota waaqac iyo waxa jira samada garan marka bulshadii suugaantii daaqada ka baxday aniga Cabdi Khadar anigoo macna xaqiiqda haddaan ku sheego suugaanta inaan sii wada ma jecli waan la dagaalamaa iyadoo ba soo dhaafto oo si aan u joojiyaan garan lahayn waaqac markaan arka iyo xilligeedii inay joogin macnaha maskaxdaada iyo waqtigaaga maxaad u gelin baan dhahay adigu kuma faraxsani waana la dagaalamaa sababayn lahayd bal arrimaha waxa xaqiiqa ah waqti xaadirka la joogo iyo xilliyada hore ay suugaantu qiimaha lahayd waxaad mudaa isgaarsiinta bulshadu inay hadda ka sareyso 100% weyn wada ognahay aad iyo aad waxa jiri jirtay xilliyo hadda ka hor qofka suugaanyahankii aad iyo gabayga uu damca inuu meel u gudbiyo inuu de ama sanado ama bilo inay ku qaadato aad iyo aad balse maanta suugaantii ama halkii meeriseeda halkan ka sheegto ummadan baa dib ogaan kareysa aad iyo aad xafuudeynaya social media lagu wada xiriiray laakiin marka iyagoo waxyaabo badan oo caalamka ku soo biiray ay hormareen aad iyo aad maxay ku dhacday inay suugaantiina ay hormar weydo oo la jaanqaad weydo casrigan iyo socota ay tayadeedu ay sare u kac weydo waxyaabihii kalena ay sare u kacaan ama inuu gaab ku yimaado suugaantii oo waxaan ku dhigi bulshadii fahankeedu fahanka ay ka qabtahay u yaraado maxaad u sameyn lahayd oo adigu shakhsi ahaan aad oran lahayd isgaarsiinta horta waxa kharibtay way shilka waagi hore suugaanta isgaarsiinahayd marka hadda suugaanta isgaarsiinta kale markay timid iyadii baa daaqada ka baxday waagi hore suugaanta waxa ay television social media iyada wax walba isgaarsiinahayd marka isgaarsiinta way saameysay mid kale waxa dhacay globalization caalamkiiba isku xidhmay dhaqamadii waxa dhacay cultural diversity waxa Soomaali ahaan waa isdhexgalka caalamka iyo caalamku xaafad noqdo isku wada xidhan saa darteed dhaqamadii caalamka dhan baa waxay noqdeen isku xidhan oo isdhexgalkii bulshada batay bulshadeennina xilliga hore dadkii suugaantii maadaama bulshadeenna mid kale waxa u badatay dhaqankii baadiyaha iyo maxaan ku dhahay wixiina uu yaraado dadkii magaalada soo galeen marka saa darteed waxyaabahaas adigu yareeyay iyo afkii iyo dhaqankii oo laga tagay ugu weyn la oran karayo waa ma garanaysaa uu curyaamiyay waa media وميديا بوسك ميديا لو استعماليه بعد لهذا هذا ميديا كعسر سنين يمد سوغانتي داقته كبخدا ادي ما حاج علان لهيد سو جيسو bulshada ama arinta ku aadan bulshada Soomaaliyeed
waxaan leeyahay war afkiina iyo dhaqankiina ha ka tegina suugaantan idinka iska leh dadka hal abuurka ah iyo suugaanta ha lagu xidhnaado ha la fahmo abwaan shilkow dhibaatada ugu weyn waxay tahay horta wixii markaad garanaysa cilmiyan afkaaga iyo suugaanta ablaableynteeda inaad barato horta wax qiimo ma ah suugaanta badaheeda maanta inaad kala barato maalmo ama toddobaad bay kugu qaadanaysaa dadkeennii suugaantii ma kala yaqaanaan suugaantu way badan tahay gabay baa jira jiiftaa jirta waxaa jirta lagu samagalaaya geeraar baa jira hellaa jirta waa boqol badood wixii ma kala garanayaan markaad badihii kala garanayso ayaad suugaanta tayadeeda ogaan karaysaa khaladkeeda saxda ogaan karaysaa qofka suugaanyahankaan kale ogaan karaysaa maxaad ku qiimeyn marka dadkii waxba kama garanayaan wax walba waa gabay bay ku leeyihin war gabaygu waa bad ka mid a badaha maansada ereyga maansana waa la fooftaan habaabiyeyo wixii ka soo hadha gabay ayay maansa dhihi waxa xaggee laga keenay gabaygu maansa weeye maansada guud ahaan maansa weeyaan ama tix kadib bay dee usii kala baxaan oo qaybaha kale marka saa darteed war suugaanta barta oo gabay wuxuu yahay barta oo jiifta barta oo heella barta oo geeraar barta markaasay dhadhan inii samayni oo aad baad maasantay awaan waxaa filayaa inay dad badan ay maartay ay ka faa'iideen waxyaabo badan baa suugaanta kala soconinoo haddii ay noqoto erey kastoo suugaaneed hadduu maanso noqdiyo haddii ma garanaysa baalkii noqdo oo lagu hadlaya hadduu maqlo isagu ama gabay u yaqaana ama maanso unu yaqaana in badan ay kaa faa'iideen baan rajaynayaa balabwan inagoo ku socon doona qaybaha u dambeeya ee suugaantaada muddo intee leeg baad adigu eega ku dhex jirtay suugaantaadu suugaanta shilka ma badno intaan ku jiray dadka anigu aan ka duwan inta badan hal abuurka yaraan bay kusoo bilaabatay aniga laakiin anoo weyn 2015 xilli dhowba baan igu soo duxday 2017kiina si rasmi aan u bilaabay marka qiyaastii ilaa 3 sano aan qiyaas karaya adigu ilaa talaabo qaadka ay ku daro 15 ka soo bilow waa 5 sano isla noqonaysa 5 sano waa yahay suugaanta lafteeda abuuran oo ku soconaya siyaabo kala duwan bay suugaanta ku timaadaa qaar waa hidda la yiraahdaa sida ay ku macnayaan dadka suugaanta oo dulduleela qaar waxay dhahaan waa hibo qaar xaalado kale iyo marxalado la soo maray bay ku timaadaa marka bal suugaantaadu maxay ku timaadaa loo dhakarayaa waa su'aal fiican horta hiddaha inaan ka barnay ma filayaa waayo familkayga ilaa ugu labaad oo kale dad gabi jiray way jiraan laakiin waxaan u sababeeyay waxa ugu muhiimsan aan u sababeeyay waxa ahayd xilliyada aan bilaabay inta badan waa kala xaalad keentay baa jirta wadanka Malaysia xilli aan joogay bay ahayd caqabada iska jira waxyaabo badan xilli waxa dhacday jaamacadan dhiganayay dhowr sano sanado dhigana oo jaamacadii la xiray oo jaamacad kale aaday waqti aad meesha ka baxay yar moral jab yimaaday iyo dee waa iska garanaysaa wadan dibadeed oo qalaad arday jooga waxa iska jira caqabado badan waxyaabahaas kulli u sababeynaya marka waxaan isleeyahay kulli hiddo way sii jirtay xaaladda way daartay baan isdhihi karaa marxaladaas daartay baan dhihi karaa aad iyo aad waa yahay gabayga aan jeclahay inaan ka soo xidhno ama u dambeeya waxa la yiraahdaa macalqabad gabayga macalqabad isla intaan isaga loo gudbin magaciisa oo kaliya yaani malanaya inuu fasiraad badan u baahan yahay aad iyo aad bal marka adoo ka bilaabaya gabayga magaciisa sababaha uu ku yimid gabaygu waxa uu ka hadlayo bal iyadana gabayga macalqabad laba eray buu ka koobay magaca gabaygu macal iyo qabad macal waxa la dhahaa halkan seeba ariga loo isticmaalaa idaha macal beelayn macashan waxa halkan dhuunta kala lamata halkaas macal la dhahaa inta badan neefka idaha marka la qabanayo kala halka la qabto weeye marka macalta weeye qabadna waa qabashadii marka macal qabad waa macal la qabto weeyaan marka macnuhu intaas xambaarsan gabaygan isna 2018 meelaha san curiyay xaaladda Soomaaliya dhibaatooyinka Muqdisho ka jira gaar ahaan guud ahaan dhulka Soomaalida ayuu siyaasiyan macnaha ka hadlayaa marka gabaygu saas u daaran yahay waxaan ku bilaabmayaa sidatan isagoo fogaan meelal iyo maalmo socod jooga mugdi iyo habeen dama inay tahay mooyaane waraabihi cabsida muu ankarin maalin gudaheeda ee malag inuu yahay u qayb muuq aragaaga malabsiga markuu kugu bartay oo kuma dhiiga intuu gala duleedka iyo muskiga maqasha boodkeeda ayuu madaxa la cawan aad macasha haysaay mitaalkiya tusaaluhu waxbay ku murbixiyaan murtidiya sarbeebahan maldahan meersiyada soohan
naxwo miigan baa daba socday mid aan soo xulay ujeedada mucdeedii haddaan taabto mililkeeda ujeedada mucdeedii haddaan taabto mililkeeda duulka macaasida falee murshidnimo sheegta mas-uul iyo kuwaas maxasta laynaya ee milladii islaamkii ba'sada magacii Soomaaliba muqdishona ka dhigay meel raqdi haadu miranayso yaan waraabo mooliyo dhurwa ku matalayaa dhiiga cabmalooliya intuu dhagar maleegayo inta shacab masaakiin ah iyo maati dhimanayso dhiiga cabmalooliya intuu dhagar maleegayo inta shacab masaakiin iyo maati dhimanayso midhihii kacaankii intay leecan muruqmaalku maafiyadu intuu talinayo mindi biro weyn leh shaydaan marooluhu intuu talada miisaami macaan jecel siyaasa intuu naga macaashayo meerarow intaa lagu jiray moolka lagu daadan magac xumo daraadeed intaana lagu maadaysan walow uu maroor nagaga jira guusha marinkeeda ha yeeshee mukhtaar iyo siduu maxamed noo sheegay allahumma salli ala sayyidina maxamed ha yeeshee mukhtaar iyo siduu maxamed noo sheegay wax wanaagsan baa mawlaha laga malaystaaye mooradiiyo dadkiisiiyo in ay mahadiyaan ciiddu intuu iman nin maareeyo oo mahadhadaas reeba inaan ciil la meeraysaniyo mahadho mooyaane milgo iyo malaha qaaya iyo noloshu meeqaam masjidada salaadaha intaa madfac lala beegsa inta culimo meeqaam sariya dhiman maqaawiirtu intay xamar masiibooyinka iyo jaar la tahay meydka daa'iradu intay meeraysay dhiig mulacyeyni walow uu maroor nagaga jira guusha marinkeeda ha yeeshee mukhtaar iyo siduu maxamed noo sheegay wax wanaagsan baa mawlaha laga malaystaaye intuu iman nin maareeyo oo mahadhadaas reeba inaan ciil la meeraysaniyo murugo mooyaane milgo iyo malaha qaaya iyo noloshu meeqaam inta qaran la moosee qabiil loo mashkixinayo magac reer intuu ina maray yahay muftaaxeenna midnimada intaan loo guntana tahay maqaarsaarka macdanta iyo shidaalkeenna iyo milacbadeedkeenna inta miidda ciiddeenna uu dhuran maraykaanku walow uu maroor nagaga jira guusha marinkeeda ha yeeshee mukhtaar iyo siduu maxamed noo sheegay wax wanaagsan baa mawlaha laga malaystaaye mooradiiyo dadkiisiiyo nin ay mahadiyaan ciiddu intuu iman nin maareeyo oo mahadhadaas reeba inaan ciil la meeraysaniyo murugo mooyaane milgo iyo malaha qaaya iyo noloshu meeqaam rag yaqaana maandeeq xorriyo iyo macaankeeda markay meerac geeyaan kolkay mirata fiidcawlka hasha aan marnaba joojin jirin maaxda dararteeda markay weyda wiil daajiyo kayn masna ageeye ma gowga cilaasho wataa dhiil lagala maagi ummad madaxu foorara dhammaan oo minjaha taagi in la saxo masiirkeeda lume oo marka la toosto mashaqada dhacaysana xal iyo maare laga gaadho maskax iyo dhaqaaliya waxay dooni maal badane muwaafaqo israac iyo tixgelin mowqif iyo toosni midnimiya go'aan meelmaraya ficil mataaneeya tashi iyo ismaqal baa wanaag lagu mutaystaa mugdiyadan isbiirsan naxligan miisan aradkeenna xumahoo la moosiya sharkoo meesha laga saaro waa lagama maarmaan siduu mawlehen yidhi muraad saxaa qofkii lee rabaa meelsan inuu gaadho dadaal iyo juhdina muujiyaa samira moogaani rabbi kama mashquulo samuu ugu miciinaaye macbuudkeenna weynaya intaad magansataan eebbe masiirkii dalkeennee lumiyo magacii raadceeya nimayahu masiirkii lumiyo magacii raadceeya warkaco masiirkii lumiyo magacii raadceeya gabaygii macalqabad intaas ku eegay awaan ilaahay ku anfaco baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gabaygaas waa gabay dhana xaalado badan taabanaya marxalado badan ka dhawaajinaya dhinacana baraarujin iyo toosin iyo wacyigelin iyo tusaale qurux badan intaba maartay ku filan waxaa tiri dhiiga cabmalooliya inta badan waxaa jira erayo sii dabar go'aya oo afka Soomaaliga jira erayadaasi waa erayo dhinaca marka laga fiiriyo asali ah laakiin bariyahan isticmaalkoodu uu aad u yar yahay erayga cabmalooli waxa laga yaabaa qaar badan dadka inaysan aad u fahmayn marka balmalooli yeere kale isaguna ahaa mulacbadeed oo aniga qudhaydu aan si u fasirtay laakiin wax si fiican la iga jahaytiraa u baahana aad iyo aad yaan reer balland ku soo celiyay labadaas eray inaad si fiican maartay inaad noo dhigto aad iyo aad baad u mahadsan tahay malooli iyo mulacbadeed horta ani laftaydu dee hal abuur baan iska malmaluuqa abwaan iyo nin dee maxaan ku dhahaayay Soomaaliga iyo waxaana ku fiicanna mihi adigu dee wax yaro ma garanaysaa ani laftaydu macna ahaan erey waxaa jira
ereyo badan oo qiyaasi iyo macnaha dhawaansho aad u qaadan laakiin macnahooda saxda aad garanaynin milcabadeed haddaan ku horreeyo isaga waxaan u jeedaa kalluunka kalluunka ayaan u jeedaa milcabadeed waayo dhulka Soomaalida marka la waa dhul wada bada ah kalluunkana khayraadka ugu badan ee ugu muhiimsan buu kamid yahay ee badaha ku jira isla markaana dadka ajnabiga gurtaan oo Mareykanka markaan leeyahay Mareykan kaliya macnaha kuma koobiyo waxay u taagan tahay dhamaan ajnabiga dhanba u taagan tahay maloli laakiin iyada kulli eray waa sifa xunun hadda aad u sigeli mahayo inaan hartay halkay dhigi waayaan ka yaabi dad badan abwaaniin iyo way daawan doonaan marka iyada taa aad u dhexgal bay faafahinteeda wax laga wanaagsan wax laga wanaagsan yahay kulli duduba ku qaataan waayahay abaan aad iyo aad baad maasan tahay waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabada barnaamijkeena baada fursad ku siiyo in qadii u dambeeyay barnaamijku sirayna yaa jeclaan lahayd inaad halkan uga mahad celiso ama aad salaan ugu gudbiso ama fariin aad iyo aad baad u mahadsantahay abwaan shilkow anoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah awalan adiga ayaan ku salaamayaa sidoo kale dhammaan bahda Murti Media isku duuban adoo ka mid tahay kameramaanada macnaha barnaamijka inaga duubay dhamaantiin waan wada salaamayaa sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa familkayga hooyaday aabahay dhammaan qaraabadayda asxaabta saaxiibaday kulligood si guud baan u salaamayaa in kala qaadqaadin cid kastoo imu garanaysa cidaan imu garanin waan salaamayaa cidda daawan doonta waan salaamayaa marka aad iyo aad bay u salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waxaa jira bariyaha saad ogtahay shilka safmar adduunka dhan farakul ku hayo coronavirus oo nolosha adduunka aad u saameeyay marka kaana ilaahay abwana ka dhaxgalay coronavirus-ka laftiisa aad iyo aad maxaad uga gabiyeedo bulshada wax maartay aad uga soo jeedin weydo uga baraarujin weydo maadaama aad ku jirtaan dadka bulshada hadii ama shaashada bulshada ku aatiin aad iyo aad baad mahadsantahay niya wax waan ka eri kulay waliba marar kala duwan laakiin ma soo bandhigin oo sidoo kale warbaahin uma soo bandhigin laakiin anu shakhsiyan wax waan ka tiriyay marka saf markaana ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dulqaado saf markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad intii ku dhibtootay ilaahay u booga dhayo intii ku dhimatay ilaahay ugu naxariisto muslimiinta ilaahayna dunida ha ka qabtaan leeyahay hay daawadayaal guud ahaanba waxaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii suugaan iyo sooyaal oo toddobaadkan marti igu ahaa abwaan Cabdikhadar Miyir Maxamed oo kamid ah abwaanada deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwada ku nool magaalada Jigjiga barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo Axmed Xasan Xuseen Shilke kaamirada iyo duubista waxaan uga mahad celinayaa saaxiibkay Cabdikhadar Xuseen habeynta iyo editgareynta waxaan uga mahad celinayaa Shakiib Axmed barnaamijkan mid la mid ah intaan dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabad gelyo